maanta idinku door karoono idinku dooqa xun idinku heena Shariif Sheekh Axmed oo la sheegay inuu casmara asaga looga doortay wasiirka afhayeenka ee qarxisyada Muqdisho ka socdo Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ah madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee beenbeenta lacagta ku cuntay iyo masaakiinta xaqooda ayaa waxaa la sheegayaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed inuu asaga falalka dhacaya dhan uu ku fiirsanayo uu u dirayo ciidamo uu asaga ku qorbo dilayo oo masaakiintii Soomaaliyeed kaga siinayaan wacaawa iyo xaaladda Muqdisho Ramadan Kariim Soomaaliya Ilaahay dhibka ha ka bixiyo aamiin waxa wararka kale idinku heena bishii Ramadaan ee khayrka qabtay inay dhamaan rabto midda kale xagga kale Somaliland iyo Puntland Somaliland oo isku sheegtay inay dawlad tahay ana dawladna waligeed iyo Allaheed aanan u ekaanin ana noqon doonin taasoo keentay laba magaalo lama sheegin adduunka oo magaalo laba magaalo oo dawlad sheegato waa taariikhda adduunka ugu xumeed dadkana way ku qoslaan dadweynahana way ku qoslaan midda kale dawlad goboleedka Puntland Ilaahay hadaaye Ilaahay khayr ha ka siiye ayaga oo dalkooda iyo dadkooda daafacaya iyo dhulkooda ayaa Somaliland kuwa daba qoodiyaal ay soo weerareen midda taasi xigto madaxweynaha dalka Soomaaliya isku sheega Cabdullaahi Yuusuf oo doorashada soo socoto aanan ogoleen inuu xilka iska wareejiyo Shariif Sheekh Axmed oo asagana Ilaahay ka baqayo oo hadarna khaainimo wado taasoo u keenaysa masaakiinta Soomaaliyeed in laga dhaafi lahaa dhibka markaas ayada dadweynaha way ku raaci lahaayeen